shabakadda basaasiinta Poland ayaa ka mid ah waxyaabihii soo ifbaxay ee caanka ahaa xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida waxayna xadeen xogtii nukliyeerka ee teknolojiyadda ee badda Britain kuwaasi oo ay u dusiyeen maamulkii Sofiyeetka. Dadka sida weyn loogu xusay sheekadan ama loogu xasuusto shabakaddan waxaa qayb ka ahaa Harry Hagton iyo Ethel Gein oo uu dhaxmaray xiriir jacayl kuwaasi oo la sheegay in ay xadeen xogtii ciidamada badda ee dalka Britain. UK Harry oo ka tirsanaa shabakad si qarsoodi ah ula socotay samaynta hubka ayaa markii dambe la xiray in ka badan 4 jeer bishii January ee sanadii 1961 isaga iyo xubno ka tirsan shabakad sirdoon oo la yiraahdo Portland waxaana la sheegay in ay isaga iyo xaaskiisa ay sirta u gudbin jireen sargaal ka tirsanaan jiray laantii horeeto ee sirdoonka Ruushka ee KGB kaasi oo lagu magacaabo Gordon Lansdale. Harry iyo xaaskiisa Guy waxa labadooduba lagu helay dambi ah in ay wax basaaseen waxaana lagu xukumay min 15 sano oo xariga markii la soo qabtay kadib waraysi lala yeeshay Ethel Gein sanadii 1961 waxay sheegtay in laga shakiyay 8 sano ka hor markii ay saygeeda u bilaabay safar joogto ah in uu ku yimaado magaalada London. Waxay sheegtay xilligaasi in mar ay qaaday bashqad ay lacag ku jirtay uu isagu lahaa waxay daadisay lacagtii waxay markii dambeeto soo ururinaysay lacagta ay ku dhex aragtay warqado ay ku qoran yihiin sirta iyo xogo muhiim ah kuwaasi oo ku saabsan hubka nukliyeerka. Guy markii ay wax ka weydiisay saygeeda Harry kaamirada yar ee uu ku dhex qariyay guriga ayay sheegtay in uu aad u xanaaqay. Ethel waxay isku dayday in ay la xiriirto dadkii uu la shaqayn jiray ee madaxda u ahaa sanadii 1956 in saygeeda uu macluumaad sir ah uu u gudbiyay dad aysan habboonayn in loo gudbiyo xogta dawladda iyo sidoo kale xogta qaranka. Fariinteeda waxa uu gaaray laanta sirdoonka Ingiriiska ee UK ee MI5 loo yaqaano balse waxba kama aysan soo qaadan xilligaasi hay'addii sirdoonka ee UK waxayna ogaadeen in Harry ay kala tageen xaaskiisa isla markaana xaaskiisa Guy ay buunbuunisay eedeymo ka dhan ah isaga. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa sheegay in shakada ay u muuqato in ay ka dambayso masayr iyo muran ay wado xaaska la furay waxauna fadhigiisa uu ahaa wixii xilligaasi ka dambeeyay Ingiriiska safaaradii Ingiriiska ee Warsaw ee dalka Poland sanadkii markii uu ahaa 1952 waxaana xilligaasi uu bilaabay xog sir ah in uu ka iibiyo xog sir ah dawladda sirdoonkii dawladda Poland. Waxa uu soo marsiin jiray sirdoonkii Ruushka ee KGB markaas uu ka soo laabto Ingiriiska. Markii la dhageystay dacwadii Harry oo uu soo jeedinayay Bramwell Jones oo ahaa sarkaal ka tirsanaa MI5 Britain ayaa sheegay in ay baareen ayna jirto war horay u soo gaaray oo ku saabsan arinta Harry. Sirdoonkii Ingiriiska ayaa iska dhiga tiray macluumaadka ku saabsan basaasnimadii ugu weyneed ee la soo tabiyay xilligii dagaalkii qaboobaa taasi oo uu sheegay in ay ka timid haweeney masarsan oo laga tagay sida lagu sheegay xogtan oo soo baxday sanadii 2019 markaasi oo ay soo bandhigeen sirdoonkii Britain ee MI5 waana markii ugu horeysay ee xogtani la baahiyo muddo 50 sano ka badan ah. Wixii intaasi ka dambeeyay waxa dagaalkii qaboobaa markii uu aad u sii xogeystay aad u farabatay sirdoonada iyadoo sidoo kale hay'adaha sirdoonada iyo jawaasiistu ay inta badan jacaylka iyo sidoo kale xiriirka lamaanayaasha ay ka dhex faa'iideysan jireen iyadoo inta badan hay'adaha muqaabaraadku ay shakhsiyaadka ay doonayaan in ay xogta ka soo helaan ay ku sabaali jireen lacag iyo sidoo kale in xiriir jacayl oo qalbi taabad ah lala sameeyo.